magaalada Markacadey waxay ka mid tahay magaalooyinka taariikhda leh ee ku yaala gudaha dalka Soomaaliya waxaana ay si gaar uga tirsan tahay gobolka Shabeellaha Hoose. Marka ayaa soo martay isbedbeddelo kala duwan iyadoo dadka deegaanka ay baahi weyn u qabeen inay helaan adeegyada aasaasiga ah oo aan laga maarmin nolosha aadanaha. haddaba maamulka cusub ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa ballan qaaday in dhawaan uu bilaabi doono dhismaha xarumihii uu ku shaqayn jiray maamulka gobolka Shabeellaha Hoose ee uu ku lahayn jiray magaalada Marka ee gobolkaasi. wariyahayaga Cabduuli Cali online ayaa warbixinta nooga soo diray halkaasi. safarkan oo ujeedkiisu yahay ukurgelidda xaaladda dadka iyo deegaanka ayaa wafdi badaaran uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Ibraahim Aadan Cali Najax waxa ay ku tageen magaalada Markacadey ee xarunta gobolka Shabeellaha Hoose waxaana mas'uuliyiintan si balaaran ugu soo dhaweeyay deegaanka Ceel Jaalle shacabka Markacadey iyo maamulkooda kuwaas oo Najax ay wafdigiisa u galbiyay gudaha magaalada Markacadey. gudoomiyaha degmada Marka Cabdullaahi Waafow ayaa maamulka gobolka ku amaanay ka warqabka xaaladda magaalada Marka. waxaan soo gaaray maanta gudoomiyihii gobolka ama maamulkii gobolka Shabeellaha Hoose oo dhameystiran ayaana soo gaaray. waxaan soo dhaweynaynaa aan u taaganahay soo dhaweyntii maamulka gobolka Shabeellaha Hoose uu hogaaminayo gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose Mastar Najax. waxaa idin leenahay markuu horeyso soo dhawaada ku soo dhawaada dalkiina hooyo ku soo dhawaada Markacadey degmada Marka ku soo dhawaada tuulada Ceel Jaalle idin leenahay. Ibraahim Aadan Cali Najax gudoomiyaha gobolka Shabeellaha Hoose ayaa tilmaamay in hadafka maamulkiisu ka leeyahay Marko ay tahay in lagu soo celiyo sidii barisamaadkii lagu yaqiinay magaalada Markacadey. Marka waa caasimadii gobolka Shabeellaha Hoose waxaan rabnaa caasimadaha waa meelaha ugu quruxda badan ugu shacabka wanaagsan ugu horumarka fiican ugu nabadda wanaagsan ee adduunka dadka oo dhan ay ku soo hiigtaan ay yimaadaan in la yimaadana la jecel yahay. waxaan rabnaa maqaamkeedii inaan dib u soo celinno aan garab ku siino odayaashan dhaqanka ah ciidamada halkaa taagan iyo maamulkooda oo isku duuban dadaalada ay wadaan ee lagu horumarinayo ee dib loogu soo celinayo bilicdii nabaddii dalxiiskii ganacsigii iyo sharaftii ay Marka ku lahayd Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan gobolka Shabeellaha Hoose. waxaan insha Allahu tacaala la wadaagi doonaa wax walba oo fikir ah oo horumar u keenaya dadkan iyo deegaankan. dhammaantiina runtii waad guulaysateen hadday ahaan lahayd dhinaca amniga odayaashii haweenkii maamulkii Marka maanta waxay taagan tahay meel lagu faani karo. waan idinku dhiirigelinaynaa in nabaddaas iyo midnimadaas ay ilaashataan. Cabduuli Cali online TV-ga caalamiga ah ee Universal gobolka Shabeellaha Hoose Markacadey.